السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibada Maashil Media. muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadanaynaa muuqaal baraha bulshada haystay 48 saacadood ee ugu dambeeyay. magacaygu waa Ayuub Cabdiqaadir. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Cameron Haron waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 1999 bishii September 9keedii, waxaana uu ku dhashay gobolka Texas. Cameron waxa uu ka dhashay qoys ladan, waxa uu ku soo koray nolol midii ugu wanaagsaneyd uguna farxadda badnayd, waxaana farxadda inuu ku noolaado ka dambeeyay labadiisa waalid. raaxadii iyo farxadii uu ku noolaa isbedelkii ugu dambeeyay waxa uu ku yimi maalinkii uu ka qalin jabiyay iskuulka. waalidkii waxa ay hadiyad u siiyeen gaari Ford Mustang ah. waqtigaas waxay ahayd sanadii 2018. muddo laga joogo 2 maalmood ka bacdi maalinkii hadiyada loo siiyay gaariga ay Cameron u bilaabatay noloshiisii mugdiga ahayd, waxaana xaafadda ugu yimi wiil ay saaxiib ahaayeen oo magaciisa la oran jiray John Bardano si ay u wada aadaan jimka. Cameron waxa gaariga la saarnaa walaalkii, waxa ay kala wateen 2 gaari, waa Cameron iyo John Bardano. in yar markii ay ku socdeen oo ay nalkii ugu horeeyay ay istaageen, waxa ka awood batay dhalinyarinimada, waxaana ay ku wada tartameen wadada taas oo aan loogu talagelin inay baabuurta ku tartamaan, waxaana 2 gaari ay ku socdeen xawaare aad u badan. waxaa si lama filaan ah wadada ugu soo beegmay hooyo ilmaheedii ku riixaysa gaariga caruurta oo magaceeda la oran jiray Jason Roisin, gabadheedana la oran jiray Lila Robinio. tigii ay goynaysay wadada waxa ay ka timi booqasho ay family-geeda kaga timi. Cameron oo baabuurka si xawli u wada ayaa kantarooli kari waayay, waxaana uu jirsiiyay hooyadii iyo gabadhii yareyd. saaxiibkiina gaarigii waxa uu ku leexiyay meel kale. isla markiiba Jason Roisin waxa ka baxday nafta, halkaasna ay ku geeriyootay. gabadhii yareydna waxa soo gaaray dhaawac aad u daran, balse nasiib darro markii la geeyay isbitaalka naftu way ka baxday. kiiskan oo socday 3 sano ee ugu dambeeyay, go'aankii ugu dambeeyay ee maxkamadda ka soo baxayna waxa uu noqday in 24 sano lagu xukumo. hadda da'diisu waa 22 sano jir, midaas oo ka badan intii uu noolaa. waa haddii uu xabsiga waqtigiisa ku dhameysto. saaxiibkiisna waxa lagu xukumay 6 sano oo xariga. daawade, adiga maxay kula tahay xukunkaas ay maxkamaddu ku soo rogtay wiilkaas? commentiga hoose noogu reeb.